الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، daawadayaal waxay noo socday casharadeenii editinka. Waxaanu hore usoo qaadanay 4 cashar kusoo qaadanay programkii loo yaqaanay Adobe Audition oo waxtarkiisa soo wada aragnay dhammaantiiba. codkana lagu hagaajinayay haddii ay tahay mid lagaga saarayo qaladaadka, haddii ay tahay mid hawada sayidka ku ah lagaga saarayo, sidii loo karagaraysanayay iyo sidii loogu shubinayay intaba aynu soo wada dhiganay. maantana waxaa halkan inooga bilaabmaya video editing, ama sida maxay ahayd videoga loo editing garaynayo, loo jarjarayo, codka looga goynayo, cod kale loo saarayo, qoraal loogu dari karo, dhammaanba videoga sida loo edit garaynayay iyo weliba sida la isu saarayay maxay ahayd codka iyo videoga intaba. haddaba editinadu way fara badan yihiin, aad bayna u fara badan yihiin, qof walibana mid buu isticmaalaa, waana kala dambeeyeen. waxaa ka mid oo kale oo jira coral video, waxaa jira maxay ahayd Pinnacle, aad bay u fara badan yihiin adigu. marka inagu waxaanu soo qaadan doonaa Filmora editing ayaanu soo qaadan doonaa oo ka dambeeyay marka coral video iyo Pinnacle loo eego, labadaba ka dambeeyay ayaanu ku soo qaadan doonaa casharkeenan insha Allahu tacaala. muuqaalkiisuna waa kan programkaanu dhigan doono insha Allahu tacaala. marka casharkeenan koowaad maanta waxaanu ku dhiganaynaa sida loogu install garaysto iyo sida loo register garaysto, labadaas ayaynu israacsan doonaa insha Allahu tacaala. marka casharkeena ayaynu gudagelinaa insha Allahu tacaala. daawasho wanaagsan, casharkeena ayaynu gudagelinaa. marka insha Allahu tacaala waxaanu tegaynaa si aan ugu install garaysano programkii Filmora ama Wondershare Filmora. bartii uu yaalay ayaan tegayaa, waan dooranaya insha Allahu tacaala. locationkiisa ama halkii uu yaalay ayaan ugu hagaagayaa. programskan baan sii gelayaa. programska markaan sii galo waa kan Wondershare Filmora, waan kusii dhufanayaa. marka kani waa keychain-kii oo maxay ahayd waa kii wax lagu karaagaraynayay hadhow ama koodhka ku siinayay. kanna waa setup-kii, markaa setup-ka ayaynu leenahay 2 jeer ku dhufanaynaa. sidan haddii uu ku dhaho oo maxay ahayd markaad 2 jeer kaliya ku siiso uu kuu soo bixi waayo, iska daa, waxaad leedahay right click baad leedahay. right click marka tado run administer ayaad leedahay oo markaa awood baad kusoo kicinaysaa. marka yes buu ku leeyahay, miyaad rabtaa do you want it to allow this application to make change to your device, miyaad rabtaa baa lagu leeyahay application-kan inuu maxay ahayd aaladaada wax kaga bedesho. haabaan leeyahay ka socda. markuu sidan yaado luqadii ayaa dooranaysaa, hadday wax kala ahayd dalka English ayaa dooranaysaa, haddaad carabiga taqaani carabi baad dooranaysaa, haddaad aanay luqad kasta u baahan tahay marka okay ayaad leedahay. markuu halkan yimaado wuxuu ku siinayaa maxay ahayd information-kan, waxaad leedahay dee waxaad kaga yoonaysa maahe ka soco, waan aqbalay, wuxuu kula ahaa free aan akhristay ayaad leedahay. marka waxaan leeyahay next. wuxuu leeyahay marka halkan halkuu programkan integi doono waxa weeye sida wuxuu kasii geli doonaa programs file-ka, wuxuu kasii tegi doonaa qaybta maxay tahay C86-ka ama 32-bit-ka ah Wondershare Filmora. deedna waxaad leedahay ka socotaana waa aqbalay. markaas ayuu halkaa ka bilaabayaa maxay ahayd halkaa ka bilaabayaa. halkaas ayuu ka bilaabayaa. waa wax aad u yar insha Allahu tacaala isagana. markaa
casharkan hoostiisa ugu horeeya casharka ugu horeeyana iyoon hoostiisa idiin soo gelin doona insha allah si aad ula degtaan macal isagoo karaagiisa wata. casharkii hore aan duubnayna inagii hoostiisa dhignay kii kale insha allah. intaa yar markuu inoo dhammaado wuxuu odhanayaa waa shaqaynayaa oo waa ku dhacay. intaa yar ayaynu iska sugaynaa insha allah. okay waa ku dhacayba already waa ku dhammaaday. isagu sidaas ayuu fudiyay installationkiisu. waxaynu raacin doonaa insha allahu tacaala sidii loo karaagaraynayay ayaynu raacin doonaa insha allah. iminka wuxuu leeyahay bey iibso ayuu ku leeyahay. wuxuu ku leeyahay waa lagu guuleystay in maxay lagu shubo programkan. halkan waa pay now iminka iibso haddaad iibsanayso weeye. halkanna waxaan leedahay waad gudihiisii baad gelaysaa waad furaysaa sidaad aragtaba. markuu inoo soo kaco haddaanu computerkeena hore ugu jirin wuxuuna siinayaa maxay 30 casho oad ku kala barato programka. islamarkaana markaad ku qanacdo ayuu ku odhanayaa waa kaa dhammaatay ee waad iibsanaysaa adeer. islamarkaa labadaniba waa laba shaashadood hadday desktop tahay tan ama laptop tahay. hadduu kombiyuutarradii hore yahayna aad isticmaashana waa kaa kombiyuutarradii yaraa ee hore foosha xumaa kuwa anigu taman ka dhiganayaa si ay laptopkayga ugu wada leekaato oo programkaygu wada leekaado. marka iminka sidaad aragto soo kacaya gudihiisana waynu geli doonaa insha allah. idna waxaa laydinka baahan yahay inaad casharba casharka uu ka horeeyo intaad daawataan aad la socotaan kana faa'iidaysataan insha allah. kulley dhitanadu waa fara badan yihiin laakiin kan ayaan insha allah idinla jeclaystay aadna u fudud. iminka saad aragto waad aragtaa hadhow casharka ku xiga ayaynu ku sharaxi doonaa meelahan waxay yihiin dhulkani waxay yihiin waxaasoo dhan qaybtan iyo qaybtan waxay tahayba insha allah. marka wuu iska daynaynaa. iminka tusaale ahaan haddaan internetkayga furo oo aan soo kiciyo way qabsanayaa markiiba oo laygu qabsanayaa. islamarkaana aan kan soo kiciyo meelahan buu yeelay sumaha ama halkaaba ku baadh waxaad leedahay waa kan. markaa soo daraagare sidaas ayaan ugu dhuftay. iminka isla markiiba waxa uu soo qoraya hadeer markaan soo kiciyo maxay ahaatay internetka ayaa layga ogaanayaa in maxay ahaatay aanan iibsan oo si qalada u qaatay programka. marka kolley internetka isagoo ku furan haddaa isticmaalo macal isticmaal wuu ku qabsanayaa waayo waa waxaanad iibsan oo maxay ahaatay aanad lacag ka bixisan. marka waa karaagaraysanaysaa insha allah. waaba kan dee markiiba yidhi the registration code is not activated ma activate garaysanayo haddaad okay taadana isla markiiba haddaan dib u furo halkaa yaraa casaanka waa kan iminka halkaas igala hor yimi. haddii kale magaciisaasu video kasta aad ku edit garayso magaciisa weyn buu shaashada madaxa ka saaraya. halkaasaa marka loo baahan yahay inaad ku waxayso maxay ahaatay
waa kaade xidhayba iminka sidaad aragto. Marka si aynu uga saarno kaas inaynu waxayno ayaa loo baahan yahay. Marka hore internetka iska xidhaynaa. Markaynu internetka iska xidhno waxaanu sameynaynaa markuu soo kaco ayaynu karaagaraynaa insha Allah ta'ala. Markaynu karaagaraynana waa inoo shaqaynayaa insha Allah. Iminka casaan yar buu halkan ka soo saari doonaa sida aragto unregistered weeye oo maxay tahay marjiskaraysna halka yar ayaynu ku dhufanaa. Marka hore waxaan tegaynaa programkii kitchenkii baynu 2 jeer ku dhufanaynaa. Markaynu ku dhufano waxaynu leenahay generate ayaynu leenahay. Generate markaynu naanana intaas ayaynu highlight garaysanaynaa insha Allah. Koobi baan leenahay isla markaaba waan iska soo xidhaynaa kan. Markaan saas aga soo xidhno maxay ahaydee waxaynu tegi doonaa insha Allah. Waxaan tegi doonaa unregistered one sita koodhkii hadda la soco. Unregistered halkaan tegay. Unregistered ayaan tegay. Markaan soo gudftay halkan ayaa soo baxay. Register ayaan ku dhuftay. Halkan waxbaan sii gelinayaa. Waxaan doonaa iska gelinayaa. Isla markaan geliyo halka hoosena waxaan ku dhigayaa koodhkii aan halkii ka soo copy garaystay. Dadna waxaan leeyahay register ayaan leeyahay. Sida aragto iminka waa register gareeyay. Casaanka yarna waynu ka qaadnaa markiiba. Markaan register gareeyo iminka way shaqaynaysaa sidaan ayuu shaqaynayaa. Cashar ku xigana waxaan ku qaadan doonaa qaybtani waxay tahay iyo tan waxay tahay. Meelahan waxay qabtaan shan qaybihiisa iyo maxay tahay kala duwan ayaan insha Allah ta'ala ku soo qaadan doonaa haddii aad baahid maayo. وعسير هذا السلام ويدل السعوديين عشر كاسي عشر ku xigeenteenu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabad geliyo idil ahaantiinba.